internetka magaciisa sida ku qoran wax la wada leeyahay internetka waa laga garan magaca kaliya ayaa ku filan inuu yahay waxaan cidiba lahayn gaari aysan lahayn xuduudihii oo dhan mutalaabay traditionalka ay la yaqiinay oo dhan mutalaabay caalamkii buu isu soo dhaweeyey dadkii buu isu soo dhaweeyey culture ahaan iyo isfaham ahaan intaba waa isu soo dhaweeyey ganacsigii ayuu isu soo dhaweeyey isa saameyntii bulshada qaybaheeda kala duwan ayuu xoojiyey haddii ay tahay bulshadaas markaas oo specific geographic meel ku nool ama haddii ay tahayba inay bulshooyin kala duwan oo qaarado kala duwan iyo adduun kala fog jooga intaba marka muddo dheer waxaa la dhihi jiray adduunyadii waxay noqotay tuuladaas la sheegaya waxa ka dhigay oo isu ekeysiiyey adduunyadii hal meel isugu keenay waa technologygaas sidee khayrkeedana looga faa'iidaystaa sharteedana loo yareeya taas waa su-aal marka caalamka oo dhan haysata meel kasta sidan hadda loo fadhiyo eed halkan u fadhidaan eed uga akhrinsanaysaan ayay dunidoo dhani ay uga akhrinsanaysaan waxaa la isku waafaqsan yahay inaan laga maarmay waxaa la isku waafaqsan yahay inuu noqday qayb ka mida nolosha qofka iyo qoyska iyo bulshada iyo dowladda intaba mar haddii aan laga maarmaynin marka waxaa dhibaata ka jirtaa sidii loo maamuli lahaa taasaa dhib weyn ku jira maamulka technology oo hadda saa sheegnay internetka oo loo adeegsanayo social media iyo wax lamidka wuxuu fududeeyey maadaama aan sheegnay inuu kacaan weyn uu ka jiro wuxuu fududeeyey cid walba inay hesho platform cid walba u furan aqoon-yahankii qofkii aan waxba aqoon yaryarkii dadkii waaweynaa rag iyo dumar kii waalaa kii miir qabay kii baadiyaha joogay kii caraysnaa kii faraxsanaa kii cabsanaa isku si baa loo adeegsanaya mid walibana audience buu leeyahy iyo dad dhegaysta iyo dad wuxuu sheegu leeyahy isku siba wuxuu sheegaya waxaa laga yaabaa hadduu qof maryo haba dhigto oo isqaawiyo oo deedna hadallada weeraha ama hadallada ugu fool xun ee ugu anshaxa xun uu ku hadlo midna uu qur-aan akriyo oo dadka wacdiyo fiyuuska haddii la fiiriyo kan qaawan baaba ka badan innaga waxaa inoo gaar ah sida la sheegay burburkii baa inagu dhacay intii aynu miir karaay ayuu caalamku horumar weyn ka gaaray dhinaca technolojiyadda iyo dhaqaalaha waan ka daba nimid waxaad moodaa marka inaynu badweyntaa ku hafanay waxaana keenaya si saa sheegnay sharta la ysaga ilaaliyo waxaad u baahan tahay inaad leedahay institutions xoog leh oo maamulaha maareeya mushkiladaas inagoon marka institutionskaas lahayn oo aan shuruuc inoogu deganeyn oon dowlad xoog lihi inoo jirin ayaynu hal mar kusoo dhex noolaanay meesha
إنه حينوس على إنه أي أمواج يويفز أي لك تطورة يعني هل مرسى أو بمرسى أو بوذي وأود بلا إنه ينعتبر درنا culays yimid buu noqday marka waa dhibaatada inaga gaarka inoo ah teknolojiyadda saan sheegnay waa lagama maarmaan laakiin waxaynu u baahan nahay in la maareeyo ayaynu u baahannahay meeshaas inagaga soo aaday marka xanuunadii aan qabnay iyo bulshadeennii oo soo kabanaysay ayadana waxa weeye runtii waa khaasiyad kale oo inaga gaar aan u leenahay oo u baahan in la dhowro